السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعنا ونكسن دمان صاحبة قيمة بدنا كحنا جانا كسمنا كستو official فضلنا هدية تيمور كورة ساسوبة قطع جانا كنوع سويتكارو كراي كمبلا كنا فرو سمر كستا كوسو كلان مقالة كلا دوان هل كان السوق لينو هدية ثورة جوك تلت مقال كنوع لا يكره سو كنا سيشر جرس سو مقال كوجار صاحبة بدنا أي لوجو سو بيران جانا كا ما أنت برنامج كنا حكسو قادنا أكتر كلاجو مقعد في جيد فرقندا أي هل سنة كدي مركا مسرح ما تياتر كوسو لابانيا سو وتفيلم كمركا لوجو مقعد كوشي sanadka 2023 noqon doona filim marka uu ku soo laabanay actorkan isagoo marka filimkan noqonaya filim marka dhankaas lagu oo kaliya ama koonfur hindiya filimkan oo kaliya laga daawanayo sidoo kale waxa barnaamijkan ku soo qaadan akhbaaraadka OTT-ga maadaama filmo xiiso badan lagu soo fasaxi doono jimcada foodan ugu soo haysa taasoo ku biyan 11 Agosto sidoo kale saxaabada wax soo qaadan actorshada caanka Sirleela ayaa wax shacay qaadistay filim sanadka 2023 iyo horaanta sanadka 2024 filimada u soo bixi doona waxaana ka mid noqotay tarshada ugu saameynta badan marka la joogo fanka Telugu sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxaan fiirin doonaa filimka lagu magacaabo Rocky Orani Birimka Kahani iyo marka tiyaatarada uu xisaaran ku dhawaad 12 casho ganacsigiisa halka maraya markaas la fiirin doonaa haddii aan ku hormarno filimka marka lagu magacaabo Kushi oo marka hogaamiye KFJ Forgonda halka xidigta marka lagu magacaabo Samantha Ruth Barabahuna filimka Trisha Katay sidoo kale filimka waxaa doorka support roles ka qaybka actorka lagu magacaabo Fenel Kishore oo marka filimkan kaalada kule iyo sidoo kale actorka lagu magacaabo Jayaram sidoo kale filimkan waa filim xisaab badan sanadka 2023 la daawan doono filimka waxa daawan doona 1 September ee filimka teatrada saaran doona halka filimkan uu directorka ninka lagu magacaabo Shifa Nirfana oo hore filamo badan u sameeyay dhankaas Telugu ee ka mid yihiin filimada Machili sidoo kale Tag Jajis oo filmo xiiso badan aad looga helo marka la fidanka teatrada iyo sidoo kale OTT-gaba marka aad looga jecel yahay waa director marka la fiiriyo filimadiisa uu taw badan marka la fiiriyo ay yihiin filmo marka guuleystay inta badan directorkan wuxuu sameeyaa filimada marka jacaylka sidoo kale dramada filimkan wuxuu isku jiraa filim romance drama sidoo kale filimka marka la fiiriyo maanta waxa laga soo bandhigay taraykiisa dhameystiran isagoo filimka daawashadiisa marka ka dhimantahay ku dhawaad 3 toddobaad ayaa filimka la soo bandhigay gooskoosiisa aadayana filimka loo soo dhaweeyay gooskoosiisa sidoo kale filimka marka la fiiriyo jilinka heerka sare ee FJ Forgonda sidoo kale Samantha Ruth Barbahu ee marka filimkan ku soo bandhigay waa jilin marka cajiib maadaama filimkan gooskoskiis aad loogu amaanay marka la fiiriyo gooskoska maanta laga soo bandhigay sidoo kale marka la fiiriyo action yariis ay marka filimkan leeyahay oo ku dhawaad actionaysa filimkan ma aysan badna sidoo kale marka la fiiriyo filimkan waxa laga soo bandhigay dhowr hoosood oo kala duwan dhanka YouTube-kan heesaas wax ka marka fiilan marka la fiiriyo dhankaas iyo filimkan dhankaas Telugu filimkaas si weyn ayaa loogu sugayaa maadaama marka la fiiriyo FJ Forgonda standard hore lagu yaqaan marka la fiiriyo filimada jacaylka marka dib u soo laabtay haddii aan hore soo xasuusto filimkiisa Geeta Govinda ee marka la sameeyay Rashmika Mandana filimkaas waxa filim classic oo marka super hit kan oo dhankaas Telugu haddana marka la fiiriyo standard hore lagu yaqaan FJ Forgonda ee marka ku soo laabtay maadaama filimkiisa ugu dambeeyay Liger oo ahaa filim marka action oo actorka markaas oo dhanka actionka marka inuu marka actorkan uu ku fiicnaan wuxuu ku soo laabtay meeshii marka hore lagu yaqaanay haddana filimkan xisaab badan marka la fiiriyo budgetkiisa wuxuu gaaray ku dhawaad 90 karoor halka shirkadda caanka Maitri Movie Makers filimkan wax ka maalgelinayso sidoo kale filimka marka la fiiriyo gooskoskiisa waxa lagu soo bandhigay marka la fiiriyo luqadaha kala duwan ee koonfurta noqon Tamil Kannada sidoo kale Malayalam ayaa filimkan la soo galay barta YouTube-ka taasoo barta loo yaqaan Maitri Movie Makers dhanka YouTube-ka ku leedahay ayaa filimka la soo galay gooskoskiisa afarta luqadood kala duwan marka koonfur hindi laga hadlo balse filimka marka la fidhankaas Telugu ayaa marka si weyn filimka loo daawanayo gooskoskiisa asxaabta filimka wax ka soo koran wax ka soo gubin doona muuqaaladan xiga qiimaha badan barnaamijkan wax kale ku soo qaadanayna xidigta lagu magacaabo Sirleela ayaa marka noqotay xidigta marka ugu saameynta badan marka la fiiriyo fanka Telugu waayaheeda maadaama xidigtan marka la fiiriyo fanka Canada marka ka imaatay oo marka 2019 marka la fiiriyo fanka koonfur hindi soo gashay gaar ahaan marka la fidhankaasi Canada ama Karnataka fankooda loo yaqaan Sandalwood ayaa marka xidigtan ka soo jeeda filimkeeda ugu horeeyay waxa filimka Kiss oo 2019 marka sameysay kaasoo marka xidigtan aad loogu amaano doorka ama jilinka marka ay ka sameysay filimkan sidoo kale marka la fiiriyo sanadii 2021 ay marka xidigtan fanka lagu soo aaday waxaana sameysay filimkii marka Happy Sindad oo marka xidigtan si weyn loogu bartay marka la fiiriyo fanka Telugu markay soo galeysay kadibna xidigtan waxa si weyn loogu soo bartay filimkii Dhamaaka ee dabiiqadii December 2020 marka xidigtan ay sameysay kaasoo blockbuster noqday ganacsi ahaan ilaa 90 karoor gaaray kadib xidigtan marka la fiiriyo shirkadaha kala duwan dhankaas Telugu ka jira ayaa marka xidigtan u soo bandhigay heshiis kala duwan
iyadoo marka la fiiriyo 2023 2024 ilaa 8 filim marka xidigtan u diyaarsan yihiin taasoo ka dhiganta xidigtan marka la fiiriyo dhamaadka sanadkan sidoo kale marka la fiiriyo horaanta sanadka 2024 inay marka xidigtan 8 filim ku dhawaad marka u soo bixi doonaan haba ugu horeyn superstarada ugu marka la fiiriyo fanka Telugu Mahesh Babu iyo sidoo kale Pawan Kalyan iyo Bala Krishna ayaa marka xidigtan filim la sameynaysa sidoo kale marka la fiiriyo xataa atooraasha marka tayatuga ama levelka dhex marka ku jira xitaa marka wala sameeysan Vijay Devarkonda sidoo kale Nithin hadda barnaamijkan maanta wax ku soo qaadanayna marka la fiiriyo 8 filim ee marka xidigtan u soo bixi doona sanadka 2023 iyo marka la fiiriyo sanadka 2024 hadda xidigtan filimkeeda ugu soo horay waa filimka marka lagu magacaabo Adi Kashafa oo marka directorka iyo ninka lagu magacaabo Sirkanta Reddy filimka doorka kaaminta waxa qaadan doona xidiga marka lagu magacaabo Fashnaf Cheti yiraahdo Fashnaf Teja oo mar xidigan wuxuu dhashay actorka caanka ah Sadaram Teja sidoo kale filimka waxa daawan doona 18 Agosto Sirelana filimka tirshakooda ay marka ka tahay waana filimkeeda ugu soo horeeya filimkeeda kale ku xig waa filimka marka lagu magacaabo Sakanda oo directorka iyo ninka lagu magacaabo Bayabati Sirunu halka uu marka hogaamiye Kairam Buthini waxaa la daawan doonaa filimka 15 September ayaa filimka teatrada saari doona waana markii ugu horeysay marka la fiiriyo Sirelana sidoo kale Kairam Buthini ee marka shaashadaha ku midoobiyaan oo filimkan xiisaha badan waa filim marka isku jira action iyo sidoo kale comedy iyo drama waana filim xiiso badan si weyn loo sugayo oo marka ninka lagu magacaabo Kairam Buthini filimka si weyn ugu xarakeeyay sidoo kale filimka kale ku xig waa filimka marka lagu magacaabo Ustaad Bhagat Singh oo hogaamiye marka la fiiriyo Pawan Kalyan Sirelana filimka tirshakooda ay marka ka tahay sidoo kale filimkan waxa agaasimi doona ninka lagu magacaabo Haris Shankar oo hore filim badan ugu sameeyay Pawan Kalyan haddana Ustaad Bhagat Singh ay marka xidigtan qayb ka tahay waana sidoo kale filimka kale xig waa filimka marka lagu magacaabo Fagafaa Kasari ee marka la sameeyay Suruga Cadaaga marka la fiiriyo fanka Telugu Bala Krishna waxaana daawan doonaa filimka marka la fiiriyo 19 October waxaana filimkan agaasimi doona ninka lagu magacaabo Anil Ravipardi oo director saameyn badan ku leh marka la fiiriyo fanka Telugu filimkan wuxuu noqon doonaa filim kale xiiso badan marka xidigtan la sameeyay Bala Krishna waana filim marka la fiiriyo action ee inaba caadan ku soo bandhigi doono ninka lagu magacaabo Bala Krishna oo marka la fiiriyo waqti fiican ku jira filimeysi akhanda iyo sidoo kale marka la fiiriyo Fira Simha Reddy u guuleysteen sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkeeda ku xig waa filimka lagu magacaabo Extraordinary Man ee marka la sameeyay xidiga marka lagu magacaabo indhaha Nithin hore marka la fiiriyo filimka magaca wuxuu watay Nithin 32 ayaa hore filimkan u watay bas hadda filimkan Extraordinary Man ay filimka loo bixiyay waxaana daawan doonaa filimka sida shaac laga qaaday 23 December ayaa filimka la daawan doonaa xidigta marka la fiiriyo sanadka 2023 filim oo kaliya ayaa u diyaarsan marka laga rabo Ustaad Bhagat Singh oo filimkan oo marka la hubo October in la daawan karin maadaama filimka shaqo badan bar u harsan tahay haddii filimka laga rabo afar oo kaliya marka u diyaarsan Sakanda Adi Kashafa sidoo kale Extraordinary iyo sidoo kale filimka lagu magacaabo Fagafaa Kasari ayaa marka u diyaarsan sanadka 2023 sidoo kale filimka weyn waxa u diyaarsan Guntar Karam ee marka la sameeyay Sultan Mahesh Babu filimkan waxa ay siimi doona Trifikram hore filimka qorshuhu wuxuu ahaa January 2024 in la daawan doono balse filimka dib u dhac weyn ayaa marka ku imaaday maadaama filimkan hogaamiyaasha kala duwanaa filimka laga saaray ugu horeysay xidigta lagu magacaabo Pooja Hajri ayaa filimkan qaybka tirshada qaadan lahayd balse filimka xidigta lagu magacaabo Sirela ayaa filimka lagu bedelay oo doorka hogaaminta ama tirshada filimka qaadan doonta sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxa ku soo qaadanayna filimka toddobaad oo filimka marka la sameeyay Vijay Devarkonda oo noqon doona Vijay Devarkonda filimkiisa 12 ayaa marka xidigta la sameynaysa sidoo kale filimkan waqtiga rasmiga daawanaya filimka wali lama shaacin waxay u baahan tahay filimkan 2024 in la daawan doono sidoo kale filimka kale xiisaha badan ee sideedad ee xidigtan tirshada waa filimka marka lagu magacaabo Ganaga ee Oka Raju filimkan waxa la sameynaysa xidiga marka lagu magacaabo Nithin Polishti ee filimka la sameynaysa waana xidig marka la fiiriyo dhankaas fanka Telugu oo kamid ah atooraasha marka hadda marka kor u kac soo sameynaya filimada ugu dambeeyay waxa ay filim marka guuleysteen saaxiibada qiimaha badan intaas ayaa ka cusub xidigta marka lagu magacaabo Sirlela oo marka la fiiriyo fanka Telugu si xawaare sare marka xidigtan u soo gashay 8 filim marka u diyaarsan yihiin horaanta dhamaadka sanadka 2023 iyo horaanta marka la fiiriyo sanadka 2024 haddii aan ku sii socno barnaamijkan waxa soo qaadanayna akhbaaraadka OTT wax ka cusub filimka marka lagu magacaabo Mafiran ee marka hogaamiye actorka marka lagu magacaabo Sifa Karthikeyan filimkan waxa soo baxay oo sida ognahay July 14keeda ayaa filimka teatrada saaray ganacsiyaana filimka wax noqday filim marka average maadaama filimka laga waliyo marka lagu gatay sidaas ayuu awdeed filimka wax ku noqday filim marka dhankaas taaminadu filimkan ganacsi fiican ka sameeyay balse filimka lagaha lagu waliyo lagu gartay filimkan wax ku noqday filim marka guuleystay average haddana filimkan waxa shaaca laga qaaday 11 Agosto
in filimkan lagu soo fasaxo doono barta loo yaqaan Amazon Prime. haddii aan fiirino ganacsigiisa marka la fiiriyo gudaha Tamil Nadu oo kaliya filimka ganacsigiisa hadda wuxuu marayaa ku dhawaad 50 karoor ee filimka hadda ka tilaabay. sidoo kale marka la fiiriyo suuqyada caalamka filimka si weyn ayuu marka u gadmay oo ilaa 15 karoor ee filimka suuqyada caalamka ka soo xareeyay, taasoo ka dhiganta ilaa 2 milyan iyo bar doolarka Mareykanka ee filimka suuqyada caalamka keenay. sidoo kale marka la fiiriyo ganacsigiisa guud dibadda dal 80 karoor ee filimka kor u dhaafaya, taasoo ka dhiganta filimkan in laga rabay ku dhawaad 100 karoor haddii uu noqdo filimka hit ayuu noqon lahaa, balse hadda filimka 20 karoor kaliya ayaa uga dhiman. sidaas ayuu filimka wax ku noqday filim marka average, maadaama lacagtiisa ku dhawaad 80% filimkan uu soo celiyay. haddana filimkan marka la fiiriyo jimcadan ay OTT lagu soo fasaxayo waliba barta loo yaqaan Amazon Prime Video. sidoo kale filimka kala soo qaadanayna waa filimka lagu magacaabo Heart of Stone. filimkan waa filim Hollywood xidigta caanka Gal Gadot ee filimka tirsho kuadka, halka marka la fiiriyo xidigta dhankaasi Bollywoodka ee xidigta lagu magacaabo Alia Bhatt ee filimkan kaalin ku leedahay. sidaas ayaa filimkan u soo qaadanay. sidoo kale filimka marka la fiiriyo gooskana filimka ka aadayo filimkan loogu soo dhaweeyay xidigta lagu magacaabo Alia Bhatt iyo doorka fiican ee filimka ka qaadanayso. jimcadan ayaa filimka lagu soo fasaxi doonaa OTT ee bisha August 11 waliba barta loo yaqaan Netflix ayaa filimkan laga daawanaya. filimkan Alia Bhatt ayaa filimkan kaalin ku leh. ugu dambeyntiina saaxiibada qiimaha badan barnaamijkan waxaa ku soo afmeenaynaa filimka marka lagu magacaabo Rocky Orani Prem Kani. filimkan hogaamiyaalka Ranveer Singh sidoo kale Alia Bhatt wuxuu soo baxay 2 toddobaad ka hor 27 July ayaa filimka tiyaatarada saaray. 12 casho ayaa fiirin doona filimkan wuxuu tiyaatarada ka keenay. isagoo filimka marka la fiiriyo 12 casho tiyaatarada saarayay. ganacsigiisa marka la fiiriyo gudaha Hindiya oo kaliya filimkan hadda wuxuu marayaa ku dhawaad 113 karoor ayuu filimkan gudaha Hindiya oo kaliya ka soo xareeyay, halka marka la fiiriyo suuqyada caalamka marka loogu daro soo xareeyay 91 karoor, taasoo ka dhiganta filimka suuqyada caalamka marka si weyn looga daawanayo. halka ganacsigiisa guud marka la fiiriyo wadarta guud iyo dibadda filimka la isku darana 225 karoor filimka hadda ka tilaabay. waantaan filimka haduu toddobaadka saddexaad sii gadmo oo marka tiyaatar ku filan la siiyo maadaama ay ka daarto sidoo kale OMG2 ay jimcadan soo baxayaan. waxaa laga yaabaa filimka tiyaatar in lagu yareeyo haddii filimka ganacsi fiican sameeyo. humantaan filimka hit ayuu la doonaa, waxaa laga yaabaa ganacsigiisa 250 karoor ilaa 300 karoor filimka inuu gaaro. fadlan haddii aad ka hesheen muuqaalkan loo leeyahay sidoo kale sii share gareeya. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.